xasan yuusuf aadan oo warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa ku yaala gudaha magaalada Caynaba ayaa bulshada ku dhaqan gobolka Saraar uga mahad celiyay sida mugale ee ciidamada qalabka sida Jamhuuriyadda Soomaaliland ay isugu garab taageen difaaca dalka waxaanu guud ahaan bulshada kala duwan ku dhaqan dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu baaqay inay u istaagaan difaaca dalkeena Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu maayirku ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ku bogaadiyay sida mar walba ay diyaarka ugu yihiin inay difaacaan dalkooda hooyo isagoo sheegay in ka maamul ahaan iyo shacab ahaanna ay la garab yihiin taageero la xadle alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay baa mahadle waxaan maanta ay bishu tahay soddonka bisha 8aad 2023 aan hambalyo halkan uga dirayaa dhammaan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ka tacsiyeeynayaa waxyeeladii gaadhay dhaawacii gaadhay berigii dhaweyto maalmihii dhaweyto Jimcii insha Allah waxaan idinku bashaaraynayaa inaad ka kaban doontaan haddii Ilaahay idmo waxaan ku darayaa dadweynaha reer Caynaba waxaan ugu mahad celinayaa sidii u canayd ay ciidanka isu garab taageen maalmihii dhaweyto ee waxoogaa dhibaatada gaadhay sida isu dhinac taageen ee u dejiyeen ee u kala maartay u soo dhaweeyeen ee kalsoonida niyadda ugu dhiseen ee ilaa imanka ciidamadii ku degan yihiin oo ku fadhiyaan ayaan ugu mahad celinayaa dadweynaha reer Caynaba iyo reer Og waxaan leeyahay halkaa ka sii wada waxaan idinku codsanayaa sida aad maalinta dhawaato ciidanka isu garab taagteen ee u dejiseen iyo si ka sii wacan inaad u garab taagnaataan mar walba oo wixii taakulo iyo maaragtay waxtaraba aad la garab taagnaataan intaas waa halkaa waxaan hambalyo halkan uga dirayaa guddigii isxilqaamay ee arrimihii muranka badnaa ee Soomaaliland dhexiyay soo afjaray aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan leeyahay nin kastoo guddiga ku jiray ama ka qayb qaatay ilaahay xasanaad ha kuugu bedelo wanaagii aad samaysay insha Allah annaguna ballan qaadanaa inaanu difaaca dalka direeska u xidhan doono oo wax kasta iyo meel kasta naga soo eegi doonto aanu ka hagaajin doono dadweynaha reer Caynaba waxaan ku codsanayaa inaad arrinkaa ka dhabaysaan macbuud cadde warbaahinta qaranka Soomaaliland Caynaba